war degdega mucaaradka ayaa qorsheeyay go'aan culus oo ka dhan ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana laga cabsi qabaa dagaal gacan ka hadal ah oo dhexmara dawladda iyo sidoo kale mucaaradka sidee bay wax u dhacayaan mucaaradku waxay awood lixaad la ka heleen beesha caalamka oo iyadu maalnimadii shalay xasan u yeedhay iyaguna qaabisho war la yaab leh oo muqdisho ka imaanaya ayaan ku haya khilaaf xoogan ayaa ka taagan aaska Allah u raxmaday General oo 7 maalmood ka hor ku geeriyooday Nairobi qoyskiisu waxay leeyihiin dalka Cumaan lagu aaso halka madaxweynaha Puntland uu doonayo qardho ama boosaaso midood in lagu aaso waayo cid hor taagan meydka marxuumka oo talaagad ku jira 7 cisho waxaan ku hayaa taariikh nololeedka jananka sidoo kale meydkiisa goorta la aasayo iyo halka ay u badan tahay in lagu aaso jufo ka tirsan beesha habar gidir ayaa isu dhiibay beesha marixaan laakiin warkaas waxa ka carooday habar shir jiraad ay maanta qabteen waxaan ku hayaa xogo iyo macluumaad faahfaahsan sidoo kale TV-gi Jubaland ee magaalada Muqdisho xaruntiisu ay markaas ku lahayd waxa burburiyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda agabkii ay qaateen sidoo kale waxay handadeen saxafiyiinta TV-ga ka howlgala ee magaalada Muqdisho ku sugnaa Jubaland ayaa war la yaab leh ka soo saartay iyaga oo burcad iyo ereyo kale oo aan la jeclaysanin ugu yeeray madaxda dawladda si gaar ah madaxweyne Xasan Maxamuud faahfaahin iyo macluumaad dheeraad ayaan ku hayaa sidoo kale beesha xawaadle waxay sheegeen in isaga baxayaan dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada kadib xilka qaadistii ninka lagu magacaabo Sambalosh tabashadoodu waxa ay tahay dawladdu ma ka jawaabi doontaa qodobadaas oo faahfaahsan ayaan soo gudbinaynaa soo dhawow muuqaalka like saar channelkana subscribe soo dheh waa hagaag waxaan ku bilaabaynaa wararkeena caawa waxa howlgalkii taageerada xasilinta midowga Afrika ee AWSON oo shaaca ka qaaday in ciidamada Burundi ee saldhigga ku lahaa degmada Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe laga daadgureeyay deegaankaasi kadib markii uu halkaasi ku dhuftay roob iyo daadad baahsan waxay ku leeyihiin sababta aan uga baxnay Xawaadle waa roob biime ogow al-shabaab ayaa isla saacado kadib la wareegay diyaarad UN ku leeyihiin ayaana ku dhacday ama ku degtay deegaan ay al-shabaab maamulaan waa qorshe laga soo shaqeeyay ayay qabaan saraakiisha ammaanka qaarkood laakiin inagu cadeyn buuxda uma hayno sababta dhabta ah ee markaasi ilaa iyo hadda ay dawladdu ugu gaabisay arrinkan ama go'aanka noocaasiba ay u gaartay ciidamada Burundi way isaga soo baxeen Xawaadle ururka al-shabaab ayaa dib ula wareegay diyaaradaas ayaana la geeyay howlgalka AWSON si wuxuu shaaciyay inay sababtu ahayd roob lixaad oo daay warkooda intaas uma dhaafayo sheegashadooda ayaan ugu ekeenayaa maxaa kaaga baxay adeehan sidee baa soo aragtaa dhinaca kale khilaaf xoog leh ayaa ka taagan Allah u naxariistay sidii loo aasi lahaa marxuumkii Soomaaliyeed iyo janankii Soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya Maxamed Saciid Xirsi oo loo yaqaan General Morgan khilaafkan xoogan wuxuu u dhaxeeyaa qoyska Allah u raxmaday generaalka iyo soo kale dawladda Puntland iyo dad kale oo Soomaaliyeed qoyskiisu waxay doonayaan in lagu aaso wadanka Cumaan oo ay degan yihiin halka madaxweynaha Puntland uu doonayo in lagu aaso deegaanada Puntland wali go'aan laga magaarin meydkiisu wuxuu ku jiraa talaagad waxaana uu 7 ka hor ku geeriyooday Nairobi qoyskiisu oo Cumaan degan waxay dalbadeen in lagu aaso dalka Cumaan halka madaxweynaha Puntland uu doonayo in lagu aaso laba magaalo midood waa qardho uu ku dhashay jananka iyo sidoo kale magaalada ganacsiga ku caanka ah ee Boosaaso ee Puntland labada magaalo midood in lagu aaso ayuu doonayaa Dr. halka qoyska iyagu intooda kale iyaguna ay doonayaan in markaas lagu aaso dalka Cumaan oo ay iyagu ku nool yihiin sanadihii ugu dambeeyay ay ku noolaayeen oo deegaan waxa janankan ayaa geeriyooday wuxuuna ahaa mid ka mid ah saraakiishii loogu jeclaa ciidamada dawladda si gaar ah madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayuu saaxiib dhow la ahaa General Morgan waxaana ka garan kartaa in uu Siyaad Barre siiyay gabadhiisii Canab oo uu caruur dhashay isla markaana ahayd xaaska u dhaxaysay jananka ee uu hadda ka geeriyooday sidoo kale rag kale oo Soomaaliyeed ayaa ninkan geeridiisa aad ugu xumaaday oo waxa uu ka mid ahaa saraakiisha loogu jecel yahay isla markaana furiyay howlgallo ay dad badan ku tilmaameen in ay ahaayeen kuwa loogu hortagay Ethiopiankii laakiin dadka dhaliila waxay taariikhdiisa qaarkood ka sheegaan balmadow oo inagu hadda aanan doonayn in aan halkan ku soo baahino ama aan ku soo gudbino maadaama uu yahay marxuum geeriyooday Allah u naxariistay qardho ayuu ku dhashay 1949kii waxa dugsigiisa hoose uu ku qaatay isla qardho sidoo kale Muqdisho ayuu soo wareegay oo dugsigii Allaahida ayuu qaybaha sare ee waxbarashada kaga baxay Mareykanka iyo Talyaaniga ayuuna markaasi tababar ku qaatay ninkan isagoo darajada ciidan meelaha ugu sareysa markaas ka gaaray hogaamiyeen dagaalo dhowr ah oo ugu dambeeyay
kii hadda lagula dagaalamayay kooxda argagixisada ee Daesh ee deegaanada Puntland markaas ka dhacay Allah u naxariistay jaranka aaskiisa muran badan ayaa ka taagan lamana ogo halka ay wax mari doonaan dhinaca kale war qoraal oo ka soo baxay Jubaland ayaa waxa eedayn cusub loogu jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ah Xasan Sheekh Maxamuud kooxda Villa Soomaaliya muddooyinkii dambe waxay caadiyeen hagardaamaynta shacabka iyo dawladda Jubaland waxayna dhac u geysteen qalabkii iyo agabkii Jubaland xafiiskeeda magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay Jubaland laguna baahiyay isla telefishinka Jubaland Xmay xaruntiisu tahay agabka kooban kaamirooyin kombiyuutarro iyo agab xafiisad dhameystiran oo muhiim u ah socodsiinta shaqada ayay kooxdu qaadatay waxayna sidoo kale sifo sharci darro ah kula wareegeen xafiiska telefishinka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dawladda Jubaland agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliya ee Soona Ismaaciil Mukhtaar Cumar oo loo yaqaan Orange ayaana lagu eedeeyay kiiskan waa sida ay iyagu raggan qoraalkooda ku baahiyeen waxay sheegeen inuu ninkaasi hogaaminayay kooxda bilaliqeysatay xafiiskii telefishinka dawladda Jubaland ee caasimadda dalka ee Muqdisho sidaas waxa lagu qoray telefishinka Jubaland iyaga oo markaasi koox arxan daran ugu yeeray dawladda federaaliga ee Soomaaliya maamulka Jubaland TV oo ka hadlay ama ku hadlay afka dawladda ayaa waxa uu cambaareynaya falkaas guracan ee lagu xanibay xafiiskii telefishinka iyadoo aysan jirin sabab sharci ah oo markaasi loo cuskaday talaabadaas iska tuurnimada ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay telefishinka ama dawladda Jubaland ee lagu baahiyay afka ku hadla dawladda Jubaland si kastaba ha ahaatee Jubaland iyo dawladda waxaad ogeydeen in u dhaxeeyo khilaaf culus isla markaana khilaafkaasi uu sababay in uu dambeyn gacan ka hadal uu ka dhaco deegaano ay kamid tahay Raas Gambooni oo ciidamada dawladdu lagu soo jabiyo Jubalandna tan iyo markii la doortay Axmedoobe November 25 2024 ilaa hadda lama caleemo saarin soo kala dawladdu ma aqoonsana dhaqaale badan oo maamul goboleedyadu ay heli jireen ayuu leeyahay caqabado ayaana ku haysta magaalada Kismaayo oo uu dhowr iyo 10 sano markaasi dhex fadhiyo si kastaba ha ahaatee Jubaland iyo dawladda lama oga xalkood halka uu ku soo ilaan doono ugu dambeynna jufa ka tirsan beesha la yiraahdo Habargidir ayaa iska dhiibay beesha sharafta leh ee la yiraahdo Daarood si gaar ah Mareexaan markii ay ku biireen beeshaas oo ay wada degaan gobolada dhexe beesha Habargidir inteeda kale way xanaaqday shir jiraad ayay qabteen reerkaasi ay aflagaado ula bareereen ee walaalahood kale ku biiray war la yaab leh ayaa maanta Muqdisho ay ka soo saareen shirkii jaraa'id ee maanta beeshaas ay qabatay ayaan si toos ah kugu xiriyaa ila daawo muuqaalka like saar channelkana subscribe soo dheh waa mahadsantahay saaxiib waxaan cadaynaynaa annagu in aan nahay reer Ducaale Faarax oo ka mid ah reer Jalaf ee beelweynta Sacad in Mareexaan uusan inaga dhaxaynin abtirsiyo iyo isir midna ka bacdi waxaan rabnaa shirkaani waa shir tala iyo tusaale la rabo in lagu gaaro waa shir la rabo in maaragtay wax dhibaato ah oo jirta lagu xalliyo waxaan rabaa aniga kaliya waxa igu soo aaday inaan gobosha tolka u furo soo dhawaada goboshu waa idin furan tahay qalbi furan ku wada hadla waxa weeye nimanka Mareexaanka oo sirta la galay oo siyaasadda wada deris baan nahay waxa islaamnimada iyo haddii ay derisnimada naga dhaxaysa dan iyo baadinimo ku dhex maqno waxaas waa war been abuur weeye warkaas siyaasaddaas waa in ilmaha naga dhex baxaan nabadoonka iyo odayaasha iyo waxgaradka waxay saxiixin ma ahan wax shaqaynaya ma ahan waa qodobka koowaad reer Ducaale Faarax ayagu waxay saxiixin wax shaqaynaya ma ahan midda labaad qabiilka Mareexaan oo wiilashayadii iskoolka aan u dirsanay oo waxbarashada nagu jiray oo odayaashan u ahayn shirka la galeen oo been abuurkay u sameeyeen oo wax ka jira aan la arag waxaan rabnaa inay ka dhex baxaan reer diini oo reer siyaad waxa weeye waxaad wadaan ma ahan wax sharafa iyo wax naga keen qabta iyo waad ogtiin wiilashaanu inayna idinka soo jeedin waxaanu nahay markaanu nahay beesha Sacad ama reer Jalaf dadka noogu qaraabo badan baa daarooftiin oo na dhalay oo wax la tirin kara maahan annaguna dhalay marka idinka waxa naga dhaxeeya Soomaalinimada iyo derisnimada iyo iska dhalka
iyo wax ceesho wada cabno iyo xeryaha aan wada degno ruubanka iyo inaanu wada daaqno iyo isdalka waxaas iyo isdhaxgalkaanaga intermarriage-kaas naga dhaxeeyay ee waad ogtihiin in annaguna idinkama soo jeedno idinkuna nagama soo jeedaan waxaan waafaqsannahay qodbadii odayaashu ay jeediyeen oo ay dhalashadooda iyo caddayntooda ku caddaynayeen walaalahood baan nahay annagay naga dhasheen mareexaan ma ahan reer diini ma ahan waa niman reer Jalafa oo bayuur ah oo aan wax baraxa ku jirin waxa weeye nimanka odayaasha oo mareexaanka ah waxa weeye awl siyaasad iyo kursi iyo waxba la isku ogaa iyo wax la kala dhacay hadda waxa weeye haday keeneen dadkii inay leeyihiin intii wax magaradka ahayd baan dhacaynaa oo boobaynaa oo magaciyo u bixinaynaa hadda taas ka yeelimayno reer Jalafna waa soo jeedaan ma jiifaan wax waa maqlaan waxna waa arkaan wax garadkoodii horena waa nool yahay haday u qabaan inay dhamaadeen war intaas mareexaan anaga wada dhalay wayna wada dhaleen waa wada dhalay wax kasta hanaga dhaxeeyo dad isku dhaxlumi kara maniin dad isku dhaxlumi kara maniin anaguna waligeema dad badan oo waxa jira Soomaaliya dad badan dad dhaxgalgala anagu ma bana galano anaguna wax ma galno anagana ma soo galno laakiin dadku waa sadalna waa la isku guursadaa marka waxa oran lahaa qolada hadda magaca sheegatay reesiyaad waa dad ehelkeena ah oo Soomaaliya oo muslima oo wax walba naga dhaxeeyaan oo dhalasho naga dhaxayso oo xiidnimo naga dhaxayso laga yaabo intaas oo qof inaan waalid u nahay yeysan waxaad gudbin xoolaha la sunti jiray hadda halkaaliye dadkii la sunto mar haddii la yiri markaa nimanka qarandoon way si guud marxaan qaran noo weydiisto si guud baan u siinaynaa laakiin dadkeena inay kala shaxaadaan aad iyo aad waxay ku tahay halis ku tahay nimanka waa niman reer Jalafa oo niman reer Wardheera walkaan laga cadeeyay waa ilmo cali baso dad qarni iyo qarni jiray baan nahay dad isdhex degaan nahay dad walaalahaan nahay dad wiil iyo walaalkiis iyo abti iyo seedi iyo xididahaan nahay mana isdhex gali karno mana isku milmi karno qof walba haybtiisa iyo deegaankiisa iyo dadnimadiisa iyo sumcadiisa iyo magaciisu leeyahay wata mana dhici karto qarnigii hadda lagu jiro oo maxay tahay 2025 ayaan dad suntanahayaa xildhibaan Maxamuud Diini oo kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug matalana dadka la sheegay in falkaasi ay ku kaceen ayaa arinkaasi ka hadlay waxaan leeyahay nimanka reesiyaad oo odayaasha ah oo sharaftu naga dhaxayso qadaf kale lama rabo marixaan anagu culaadno ma qabno gooni ah dhibaato gooni oo hadda anaga aan ka shaqeynayna ma jirto laakiin sida xaqiiqdu tahay waxa weeye in la iska gacanaysto oo nin reer Jalafa inta uu timaada tiraada ana iga dhuntay ayada lafteeda waxay tahay bahdil iyo aqlaaq xumo wax laga xumaadana weeye runtii nabadoonka guud ee beesha Cabdikarkaar Wardheere ayaa u sheegay ragga ku kacay hadalkii ay ka xumaadeen dadka ku abtirsada beesha ayaa ugu baaqay jufada falkaasi geysatay inay raaligelin ka soo bixiyaan beer heshiisiyaad waxaan leenahay dad ehel oo walaalaha nahay daris baana waa wada degannahay dhal iyo hadday wax taraysa midda noo dhaxaysa ayaa nagu filan intaasaan leeyahay waxaan kaloo ku dari lahaa taran haddii la goobayo si kale loo dugoobaa ma ahane dugsiyada iyo iskoolaadka ilmuhu dhigtaan in lagu wareegaa macno samayn mayso waa ka digaynaa arrintaas inaad hore ugu sii socotaan tii horoo samayseen inaad balojees ka bixisaan ayaan u baahannahay anigoo ah odayga dhaqanka ilaa hiiraan ilaa doolow ilaa Kenya inta u dhaxaysa anigoo ah odayga dhaqanka oo beesha waxaan waafaqsanahay odayaashu sida ay u hadleen labada dhinac oo walaalihii gobasha dhigay iyo inta kale oo qabiilka ah afkaygana waxaan ku kabahayaa beesha reesiyaad waxaa laga rabaa balojees inay bixiyaan